Jacob Ferey Soomaaliduna ay ula baxday Yacquub Ferey kugu maalnay shalay iyo darra dad la xirxiray ayuu xabsiyada ka soo daayay asagoo u cuskaday qodobo muhiima qofkii dambiilaahi waa dambiile laakiinse qofkii sharci maray sharcina haysta cid taaban karta ay ma jirto yiri waliba markuu arkay in si toos ah loo bartilmaameedsanayo Soomaalida asaguna waa garab istaagay oo waa kana asagoo yiri si toos ah ayaan idin garab taaganahay دمان شعبك سوماليات كونول مينيسوتا غارهان مينيابوليس وعن كوجي جنيلا هاي وعن كو جرب تغانها إلهان عمر إيا كوحديدي هدي لا دوران لها كيس كان ويسي فوغان لها waxa weeye dadka Soomaalida halka ku nool Mareykankana xaalad xun ayay wajihi lahaayeen markii Jacob Ferey ay Soomaalida qaar garab istaagayeen waxay ahaayeen dad indheer garada waxay ogaayeen xaaladda ay wajahayaan dadka Soomaaliyeed Mareykanka ku nool Jacob Ferey maanta Soomaalida uu soo baxay wuuna garab istaagay asagoo waliba yiri waxa weeye ice iyo waxa weeye Trump iyo sheekadan waxa weeye Trump wato ee cunsuriyada cid uu wax uga qaadi karaa ma jiro waxa weeye Minnesota aniga ayaa maayar ka ah dadka Soomaaliyeedna aniga ayaa metela waana garab taaganahay asagoo waliba ficil ku daray oo dad la xirxiray shalay iyo daraad xabsiyada ka soo daayay markaana qodobo muhiim ah u cuskaday loo yara u qabtay waxa maanta Soomaalidii Mareykanka furtay Jacob Ferey oo ay shalay doorteen laakiinse Ilhaan Cumar iyo kooxdeedii guryaha ayay ka soo bixi laayeen oo ayagii ayaaba cabsanaya oo isle ama layna tarxiila guryaha ayay ka soo bixi laayeen oo waa cabsanayaan Soomaalidii dooratay Jacob Ferey kuma aysan qasaarin ama gaal ahaado ama yuhuud ahaado qofkii waxa weeye Soomaalida Mareykanka dantooda ka shaqeynaya waxa weeye waa mahadsan yahay runta laga hadlaya ciduu doonaha noqdo waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka ku nool iyo dadka Afrika ku nool ee Soomaaliyeed Soomaaliya ku nool waxa weeye waa isku xiran yihiin sababtoo ah wiilka jooga Mareykanka ama gabadha Mareykanka joogta si toos ah ayay biil ugu soo dirtaa Soomaaliya marka dadka waxa weeye Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool iyo waxa weeye dadka Minnesota ku nool waa isku xiran yihiin waa isku mid marka Jacob Ferey Soomaalidii uu furtay waxa weeye sidii loo doortay oo loo garab istaagana uu ugu hambeeyay runtii dadka Soomaalida ee Mareykanka ku nool waxaan leeyahay Jacob Ferey waxa doonta noqo hambalyo Jacob Ferey Soomaaliduna ay ula baxday Yacquub Ferey kugu maalnay shalay iyo darra dad la xirxiray ayuu xabsiyada ka soo daayay asagoo u cuskaday qodobo muhiima qofkii dambiilaahi waa dambiile laakiinse qofkii sharci maray sharcina haysta cid taaban karta ay ma jirto yiri waliba markuu arkay in si toos ah loo bartilmaameedsanayo Soomaalida asaguna waa garab istaagay oo waa